sheekh Cabdulxaq Xasan macallin oo kamid ah shakhsiyaadka ka howlgala xarumaha isku daweynta Quraanka Kariimka dhirta dabiiciga iyo sunnaha nabiga salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ayaa kulan wareed uu ku qabtay xarunta kumeel gaarka ee Ruqyatul Cabdulxaq ee magaalada Burco waxa uu si feejigan uga waramay kulan dhex maray isaga iyo culimada gobolka Togdheer kulankaasi oo ku tilmaamay mid waana ah isla markaana safgarad laga gaaray hanaanka uga howlgali doono sheekh Cabdulxaq magaalada Burco waxaana kamid ah hadaladiisii insha Allah taala waxaan ku sugnay magaalada Burco saawgeed waxaan la haray muddo 2 cisho xaruntu ay si furna lahayd waxaan kulanay culimadii magaalada kulankaas culimadu aniga igu nasteexaynayeen أما إن شاء الله تعالى وحيابها أنت بدن أي علماء السوق قاتان إن غلطان إن شاء الله تعالى كذا هذا لي وأنا نقبل علماء سيد النظام كاه إن خيرك وكجرو إن نستحدوا أي هيد حال إن شاء الله تعالى رمودي هذا الذي أيوسف بندقين إن علماء وحيابها قبلا أي مارت حالي بالنسبة وحكيم ده ضدك مارتي حنوصنيا dumarka maartay la qaqabanayo awalan saasoo kale culimadu waxay ka hadleen dadka faraha badan ee meesha isugu imanaya maadaama ay noqdeen 10 sano shaqeynayay dad diin sheeganaya intay yeeray gogol ila fariistay waxaan uga dhigaa abaalmarin inaanan wax allaale waxay la yimaadaan iyo mowqifkay qaataan aanan marnaba ka hadlin in badan kamid ah rag culimo sheeganaya loo yimaadaan ama youtube-da naga eegaan inay halka ka caytamaan iyagoon u fiirsan waxaan nahay iyo waxaan qabanayna laakiin culimada xalay maadaama ay yeereen oo ilaahay ku nasteexaynayna nasteexadoodii waxa weeyaan waa soo qaatay muhiimadana waxay noqotay in cilaajka la xiro arrinkana la hakiyo kadibna qaabka loo shaqeynayo iyaga ay maarta soo dorisaan sidan si ka fiican ama nidaam ka wanaagsanna culimada ay noo keento waana ka aqbalnay waan uga mahadnaqaynaa waxaan leeyahay reer Burco ما هي ماشي نقله حري ما هي نلا عيسى العلماء ورثة الأنبياء وح الدنيان وحاولنا وناجح أيام لقى هذا ساسا إن شاء الله وبحيا. القرآن صار وسيحري ين معدي إلهي سيلاهم بقياس كريا والله لما هسنا لما سنا كذي اللي يقول سيحري أفرت بين القرآن كيسر عافمات كان كاري إلهي بنقول شكر لغيا الحمد لله رب العالمين ولكن أنا ما حد لغيا ماذا أنا نتجن ما تشوف شيخنا برعشوبة وحقات سنة ولا دنا إلى نوضع يا شيخ وأنا نقول كلفين وضع الشيشان نقول تجنا ونقول تجنا حتى نجا يريد ونقول تجنا دايما إنه عافمات بالهاي نجسي كلام إلهي بنقول دواء إلهي بنقول عافية نوضع وراك خير كقبيل علماء برع وعلماء دينك وقرن الإنسان إلهي سبحانه وتعالى المؤمنين إلهي وجدنا المؤمنين إخوة ساسير بين أخوة وحويا وذات وحويا أنا ما حبسنا ومتقل لكن تداني جاي توحيد كإلهي القرآن الكريم كايو علي داير محمد بوس برع